fadlan subscribe dhe gambaleelka furo ku xidhnow Togoyo Media Group. dalkeenu uu ka soo gudbay waqtigii sadbursiga uu ka soo gudbay waqtigii dawladnimada lagu danaysan jiray waxaan joognaa waqtigii dawladda shaqadeedu ay ahayd inay shacabka u adeegto maanta waxaa idin yimid shaqaalihiinni idinka idin shaqaynayay oo aniga aan koow ka ahay waa dhigmaqalka hadaladii dhiiranaa ee Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo kursiga ka sii maqan wax ka badan 50 cisho kadib kalsooni kala noqoshadii baarlamaanku ku sameeyay xukuumadii uu hogaaminayay 25 Juulaay taasi oo ugu dambeyn isaga uu aqbalay saacado uun kadib soo yeeritaanka warka xilka qaadistiisa Xasan Cali Khayre ayaa xilligaasi ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo habeenkii 24aad ee isla bisha loogu sameeyay munaasabad sagootin ah isaga iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay shirkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee Dhuusamareeb 2 toddobaadkii ugu dambeeyay ee xilhayntiisa ayuu Khayre ka waday Dhuusamareeb abaabulka iyo diyaarinta ciidamada dawladda si loo bilaabo howlgal lagu xoreyn lahaa deegaanada ku jira gacanta al-shabaab waxa uu qorshuhu ahaa in laabashadiisa Muqdisho kadib la soo dhameystiro agabka ka dhiman ciidamada si dhaqaaq u suura galo waxay hawshaasi halkeedii ku hakatay habeenkii ugu dambeeyay muddo xileedkiisa oo xaalku si dhaba isu bedelay waxaan leeyahay geedkii golihii iyo geengii iyo gurigii nabadeed ee Dhuusamareeb waa in la dhigaa gogol gacaltooyo oo looga shaqeeyaa in doorasho halkan lagu qabto laakiin si ay taasi ku dhacdo waa in la soo buuxiyaa shuruudaha ay mudan tahay xasuusaha xiisaha leh ee ku jira xiska reer Galmudug ayay qayb ka noqdeen go'aanadii Khayre ku dhisay Galmudug maanta jirta oo marxalada adag ku gudbanayeen maalmihii dhismaheedu socday muddo ka badan 40 cisho ayuu Dhuusamareeb saldhigtay Khayre oo uusan meelna kaga bixin taasi oo Galmudug ka dhigtay goobtii labaad ee ra'iisul wasaarihii hore ku qaatay waqtigiisii ugu badnaa maalmihii uu xafiiska joogay waxaa intaa dheeray dadaaladii nabadeed iyo soo afjaridii mid kamid ah colaadihii sokeeye ee dalkan soo maray qarnigan taasoo ka dhex jirtay walaalaha Huurshe iyo Xiraale qaramayntii maleeshiya beeleedyada iyo dhismihii awoodda ciidanka federaalku ku leeyahay Galmudug inta oo dhan waxaa dheeray dheelika ilaalinta dhismaha maamulka Galmudug oo dugmo iyo dhihidba uu ku lahaa hadba dhanka ay ka xiranto waxa uu maalmo ku qaatay magaalooyin kala dheer waxa uu dhigtay xusuuso aan dhammaad lahayn isagoo dhidibada u aasay maamul dharaaro kooban ku guuleystay in dhanka hore uu ka galo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dalka magaalo madaxdii waan isugu nimid ciidamadii waa la qarameeyay kuwa amisom way joogaan ku dhawaad 1000 ergaa iyo madaxdii Galmudug oo dhan ayaa halkan fadhida waxaan idinka codsanayaa fursadan iyada inaan laga lumin reer Galmudug intaasi oo dhan waxay dhiirinayaan damaca soo shaacbaxay ee Khayre ku doonaya kursiga madaxtinimo ee dalka doorashada dhici doonta horaanta sanadka soo socda ee 2021 dadka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa u arka fariinta ra'iisul wasaarihii hore ee Khayre ku shaaciyay musharaxnimadiisa xilka madaxtinimo tuguusheedu dhameystir u noqon karto inta ka dhiman dadaalkii uu galiyay Galmudug shaqo fiican buu maxay meeshaan ka qabtay xaqiiqatan Galmudug wuu hagar baxay ولو دولة حكومة ساهد وأصير رئيس الوزراء كاها وأنا كو أمانيه أنت أصيدا أصير وكو أمانيه هي حقيقة قلم ووايد سين وينوها قربحين نفي مال بواقليين سيد الوهل لها قلم مدأ مركا أنت أصيدا وكو أمانيهن كل يكوجر وحنقبا أنت مدحيلات كيسي وجوي intii asaga u kasbadayna way taageeraysaa waxaan leeyahay good luck tijaabi nasiibkaaga hore soco waxaan kale oo soo dhaweynayaa musharaxnimada oo isku taagay xilka madaxweyne oo waxaan dhihi karaa waa nin howlkar ah u qalma dalka Soomaaliya inuu samata bixiyo oo maanta ka soo bixi karo waxa looga baahan yahay bulshada dalka Soomaaliya ee ku nool Soomaaliya ku nool qolkiiba 100 doorkii uu kala hay qof qari karta ama dabooli karta ma jirto door firfircoon oo muhiimadiisa leh ayuu kala hay Galmudug dhismihiisa haatan haduu isku taago xilka musharaxnimo ee dalka Soomaaliyana
waxaan isleeyahay waa nin capacity iyo awood u leh inuu Soomaaliya hogaamiyo oo leader xasan cali khayre ayaa 3 sano iyo bilooyin oo xafiiska joogay kaga mid noqday siyaasiyiinta ugu saameynta badan jiilkiisa maanta habsocodkiisii gacantaagiisii qosolka iyo baaq u bixinta kaamirada lahaa iyo qudbadihiisii hadba maalinba lahaa hal abuurka cusub ayay dad badani filayaan in ay dib u soo noolaan doonaan 2 bilood kadib waana loolan aad u adag oo uu la geli doono musharaxiin iyaguna aan saameyn yarayn Cabdullaahi Warsamo Roble Somali News TV Dhuusamareeb